qofka mu'minka ahi waa qof dhaqankiisa iyo diintiisu ay keensanayso bulshadu inay ku soo hirato ku soo dhawaato qofka mu'minkii maaha mid lacaana mid cayb badan mid gacan adag mid dhaqan xun dadka badh baa jira markay kaa soo horbaxaan aad waddada uga weecato ama golahay fadhiyaan aanad jeclayn inaad fadhiisato ama meeshaa fadhidaan aanad ku farxin markuu kuu yimaado nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay qofka mu'minkii kaa maaha qofka mu'minka ahi waa mid dadku ku soo ururaan oo ku soo hirtaan oo jecel yihiin oo u yimaadaan isaguna dadka jecel oo ku soo dhowaada kaan sidaa ahayn buu nebigu leeyay khayr ma leh dadka waxaa u mudan buu markaa nebigu yidhi wa khayru nnaas waxaa u mudan u fiican anfacuhum linnaas dadka ka ugu waxtar badan dadka waxa ugu mudan buu nebigu leeyay markii la tilmaamay mu'minku qof lagu soo dhowaado lagu soo hirtay inuu iyo dhaqankiisuba caynkaaye mu'minkaa laftiisu noocaasi sidee bay u kala fiican yihiin waxay iyaguna u sii kala fiican yihiin buu nebigu leeyay anfacuhum linnaas dadka ka ugu waxtar badan asalka waa kii xadiidka muslim ku yaala nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayay man istataaca minkum an yanfaca akhaahu falyafcal waxaan u malaynayaa xadiidkan sababtiisu inay ahayd qoladii tidhi waxbaanu tuftufnaa ama waxbaanu akhrinaayoo dadka waa dawaynaa ee uu yidhi bal itusa waxa wax ku dawaysaan ee markay arkeen uu nebigu arkay waxay akhriyaan inaan macsi iyo xumo iyo shirkitoona ku jirin wuxuu ku yidhi man istataaca minkum an yanfaca akhaahu falyanfac ninkii awooda inuu walaalkii wax tarow wuxuu doonaba ha noqdo qofkii awooda walaalkiisa kale inuu wax tarow falyafcal buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam sidaasi ha yeelo xadiidkaasi markaa cumuuman wuxuu tilmaamayaa dhaqanka qofka muslimka uu leeyahay wuxuu yahay waxaa kaloo uu tilmaamayaa iimaanku iyo akhlaaqda fiican siday mu'miniintu ugu kala sarreeyaan inay ka mid tahay siday u kala nafci badan yihiin siday u kala waxtar badan yihiin nafcigan aynu ka hadlaynaa markaa waa maxay waa nafci adduunyo iyo mid aakhiraba waxtar adduun iyo waxtar aakhiro bini aadam wax la taro horta waxa ugu weyn kow inaad aakhiradiisa badbaadiso khasaaraha ugu weyn ee bini aadam ku dhaca waa dee cimrigii oo dhan inaad khasaarto nolosha caadiga ah maalan ninka taajirka ninka wax baranaya ninka guursanaya ninka baa laga yaabaa marmar inaad ku khasaarto wixii aad samaysay waxbarashadii inaad saaqida ama intaad soo baratay waxbaba shaqo ku weydo tijaaradii intaad gashay inay kaa khasaarto laakiin waxaad rumaysan tahay weli inaad haysato maxay jaanis wax kale inaad tijaabin karto haddaad tijaarada markan loosgarayso weyday inaad si kale isugu dayi karto lacalla in mar dambe alla kuu furee guurku hadduu markaan kaa xumaado inaad mar dambe tijaabin karto waxbarashadu markaan hadday kaa xumaato inaad laakiin meel baa jirta hadday xumaato tijaabo dambaba aan lahayn waa cimriga markaad khasaarto markaad geeriyooto ee kitaabkaaga la laabo hadduu khasaare ku guntamo soo noqosho ma leh jaanis dambe ma leh markaa khasaaraha qofka kaa badbaadiye ilaahay sababtiisa kaaga badbaadiyey waa qofka kuugu waxtar badan maalan waxaynu leeyahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii diinta uu soo dhiibay nolosheenna waa dadka inoogu waxtar badan waxaa laga yaaba adigu markaad waxtar ka fikirto dadka nool iyo meelaha kan inaad egeegto laakiin dadka inoogu waxtar badan leh waa dadka aakhiradeenna badbaadiyey ee nolosheennu waxay ku hagaagaysay tu adduuniya tu aakhira baa inoo sheegay sidaa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa waalcasri ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw biاlxaqi watawaasaw biالصabr inta rabbi dhaartay
ayaa alla wuxuu leeyahay bini aadamku dhammaantii khasaare barhtankiiba ku jiraa baa la yidhi la fii khusr ilaahay baa dhaaranaya subxaana wa tacaala waxaanu ku dhaaranaya bini aadamku inuu khasaaraha barhtankiisa ku jiro qolaa alla ka soo reebo la yidhi khasaaraha way ka baxday oo iyaguma khasaarin waa qolada laga helay iimaan iyo camal suuban ama hagaagsan markaasaa weliba camalkaa suuban wax ka mida lasii tilmaamoo la yidhi waa kuwa xaqa isu dardaarma sabirkana isu dardaarma qofka xaqa kuu dardaarmay ee sabir kuu dardaarmay wax ku anfaco waxyaabihii kuugu wanaagsanaa buu kuu sheegay wax ku tara wixii kuugu roona